wafdi ballaaran oo warkacaya agaasimaha guud ee wasaaradda biyaha tamarta iyo macdanta maamulka SSC Khaatumo mudane Salmaan Aadan Xasan oo ay weheliyaan xildhibaan Maxamuud Cismaan Nuuryare Budeeye iyo xildhibaan Siciid Ibraahim Axmed ayaa maanta magaalada Geeddeer ee gobolka Sool ka dhagax dhigay ceel riig biyood ah oo markii ugu horeysay taariikhda ay yeelato magaalada Geeddeer ee gobolka Sool. odayaasha iyo qaybaha kala duwan ee dadweynaha reer Geeddeer ayaa uga mahad celiyay xildhibaanada iyo wasaaradda biyaha tamarta iyo macdanta maamulka SSC Khaatumo dhagax dhig ay u sameeyeen riig biyoodka magaalada Geeddeer ee gobolka Sool. odayaasha xaajaqaadka ah ee magaalada Geeddeer oo si weyn u soo dhaweeyay agaasimaha wasaaradda biyaha tamarta iyo macdanta maamulka SSC Khaatumo mudane Salmaan Aadan Xasan iyo labada xildhibaan ee kala ah xildhibaan Maxamuud Cismaan Nuuryare xildhibaan Budeeye iyo xildhibaan Siciid Ibraahim Axmed ayay ugu horeyn odayaasha magaalada Geeddeer iyo maamulka magaaladu ka mahad celiyeen dhagax dhigan loo sameeyay riig biyoodka magaalada Geeddeer. ugu horeynba qaar ka mid ah xuqaasha beesha guuleed garaado oo ku sugnaa magaalada Geeddeer ayaa sheegay inay ku faraxsan yihiin in maamulka SSC Khaatumo ay gaar ahaan wasaaradda biyaha tamarta iyo macdanta maamulka SSC Khaatumo ayaa sidoo kale xildhibaanadii deegaanku ay soo gaadhsiiyeen magaalada Geeddeer ceelkan riig biyoodka dhagax dhigiisa iyagoo waxqabad la shiriyimid. deegaankani waa deegaankii Geeddeer waxa taagan riig wuxuu u taagan yahay inuu biyo ka soo saaro oo qodo oo ka hawlgalo 11 bisha sagaalaad ee berrito ayuu shaqadu bilaamaysaa 10kii bishana waa inoo yib sidaa daraaddeed dadkan hadda ehelka ah ee meesha 10 ee islaamka ah xubno badan buu ka kooban yahay. riigan waxaa ku mahadsan ilaahay ka sokow maamulka Khaatumo ayaa noo keenay annaga. waxaan aad ugu faraxsanahay maanta oo aynu halka joogno dhagax dhigii riigga loo qodi doono insha Allah taala Geeddeer oo maanta inala jooga. aad baan ugu faraxsanahay. waxaan aad ugu mahadnaqaynaa dawladdeena yarada curdanka ahayd aynu dhisannay ee muddada yar jirtay inay maanta wasaaradii iyo xildhibaanadii iyo intiba ay inala joogaan oo biyihii inoo yimaadeen Geeddeer. ilaahay ugu mahadnaqa dadaalkeenni in ilaahay inoo keenay dawladdeena Allah inoo barakeeyo. goobtu sida hore loo sheegay waa Geeddeer oo ka tirsan gobolka Sool weeye waan ducaynayaa anigu halkan ducoon baan oranayaa. ilaahay waxaan ka baryayaa Allah raxmaanka casiiska qafuur raxiimka ee cirka dhisay dhulka goglay ilaahayga waxaan ka baryaynaa ilaahay inuu biyo khayr qaba naga siiyo biyo ummadda ku filan oo ummadoodan ku filan annaga nagu filan ummadoodan ku filan ilaahu nooga dhig. sidoo kale maayirka degmada Wulwid Cawka Cali Geelle oo ahaa mas'uuliyiintii goobta joogtay ayaa isna ka mahad celiyay dadaalka dawladda SSC Khaatumo. si gaar ah waxaan ugu mahad celinayaa wasaaradda macdanta iyo biyaha tamarta ee SSC Khaatumo si guud. si gaar ah waxaan ugu mahad celinayaa agaasimaha Salmaan Aadan oo runtii juhdi iyo dadaal geliyay in riigan uu maanta uu halkan yimaado magaalada Geeddeer. waan uga mahad celinayaa iyagoo runtii muddo kooban duruufo iyo xaalado adag ay ku geedaaman yihiin haddana dadaalka ay deegaamada SSC ka wadaan wasaaradda waa uga mahad celinayaa si guud. geesta kale xildhibaan Maxamuud Cismaan Nuuryare injineer Budeeye iyo xildhibaan Siciid Ibraahim Axmed oo ah mudanayaasha dawladda SSC Khaatumo ku matala beesha guuleed garaade ayaa iyaguna goobta ka hadlay. waxa weeye waa Geeddeer magaalada Geeddeer waxaa laga ka daafuranaa maanta ceel riiga ceelkaasoo loo qabay baahi weyn. wasaaradda biyaha iyo macdanta SSC Khaatumo ayaa garwadeen ka ah waan u mahadnaqanaa. waxaan nala jooga hadda agaasimihii wasaaradda nala jooga agaasimaha wasiirka Cali Dhakaawe inta uga mahad celinayna waxay sameeyeen shaqadaas oo ahayd safayn inay mariyaan deegaanka oo safayn ku galaan kadibna waxa weeye haddana ay keenaan ciddii fulin lahayd iyo gacanta geysan lahayd. madaxweynaha SSC Khaatumo madaxweyne ku-xigeenka gudoomiyaha baarlamaanka wafdidii timi Wulwid ee deegaankan timi wixii la faray waxa weeye laga codsaday ee shacabku codsaday markay yimaadeen safarkoodii waxay ahayd 2 qodob bay ahayd. labada qodob waxa weeye waa biyo baahi biyood baa la faray oo loo soo gudbiyay baahidaas oo aad u baan baa loo sheegay deegaanka qodobkaas waa fulay. hadda waxa weeye 3 riig bay ahaayeen biyuhu riigii ugu horeeyay baa maanta taagan 2 riig iyo dhaam
labadaas saddexdaana waa hadheen hadduu allaydma insha allah deegaanka laga fulinayo deegaankan wuxuu qabay baahi weyn buu qabay oo biyood waa deegaan aad u ballaaran oo ilaa 100 kilomitir isku weer ah oo aan riig lahayn way ku maasan tahay wasaaraddu markay samaysay qiimayn ay samaysay inay aragtay in halkan looga qabo baahi weyn loo qabo aad iyo aad baan uga mahadcelinayaa madaxweynaha iyo fulintana waa u mahadcelinayaa sababta waxaan joognaa maanta magaalada Geeddeer oo laga hirgelinayo ama laga taagayo riigii ugu horeeyay ee ay deegaanadani helaan nasiibna u yeelatay runtii sarfeygii la sameeyay kadib marka hore waxaan u madnaqayaa reer Geeddeer oo si fiican u soo dhaweeyay barnaamijkan waxaan kaloo rabaa inaan reer Geeddeer uga mahadnaqo sidii wanaagsanayd ee sharafta lahayd ee qiimaha lahayd ee ay uga qayb qaateen halgankii socday ee dalka lagu xoreynay runtii hadday ciidan tahay iyo hadday xoolo tahay iyo hadday abaabul tahay intaba runtii in badanna waan xasuustaa halkan inaanu nimi annagoo ciidan iyo xoolo doonayn oo aad iyo aad sidii nolola shaqeeyay iyo reer Geeddeer sidii sharafta lahayd ee halganka uga qayb qaateen oo uga mahadnaqaya iyo guud ahaan deegaanada iyo waxaan kuusho inta ka qayb qaadatayba intaa markaan ka gudbo waxaan marka hore rabaa inaan u mahadnaqo guud ahaan madaxda maamulka SSC Khaatumo dhammaantood madaxweyne ku xigeen gudoomiyaha baarlamaanka gaar ahaan wasaaradda biyaha wasiirkeeda oo inagala joogo agaasimihii guud ee wasaaradda Salmaan mashruuca iyo barnaamijka ee maamulkeena urdaka uu markii ugu horeysay ka hirgelinay deegaankan waa wixii ugu horeeyay maamulka ka hadlo runtii aad iyo aad baan uga mahadnaqayaa waxaan kaloo si gaar ah ugu mahadnaqayaa xildhibaanada iyo wasiirada deegaankan ku matala waxaan kugu sheegay dawladda ama maamulka SSC Khaatumo oo runtii iyaguna juhdi fara badan iyo midnimo fara badan iyo dadaal fara badan ka galay deegaanka wixii uu xaq u lahaa si waxaan kugu sheegay loogu raadin lahaa maadaama uu yahay deegaanka deegaanadan oo dhan ugu biyayar ama dhulka SSC hadda marka la eego iyagana aad iyo aad baan uga mahadnaqayaa runtii waan ku wacnaan leedahay wada joognay laakiin waa soo kala dahan isku soo wada duubo daawadayaal ugu dambeyntii waxa hadal jeedinta soo afmeeray agaasimaha wasaaradda biyaha iyo tamarta maamulka SSC Khaatumo mudane Salmaan Aadan Xasan oo sheegay in wasaaraddiisu ay ku faraxsan tahay dhagax dhigga riigi biyoodka magaalada Geeddeer ee gobolka Sool sidoo kale agaasimaha wasaaradda biyaha tamarta iyo macdanta maamulka SSC Khaatumo ayaa sheegay in mashruucan ay la kaashadeen wasaaradda biyaha tamarta ee xukuumadda federaalka Soomaaliya waxaan joognaa Geeddeer oo dhagax dhiggii ceelka riiga ee degmadan hadda waxaan marnay bishii 6aad ee sanadkii bishii 6aad ee soo dhaaftay waxaan deegaamada ku marnay assessment qiimeyn aan ku sameynay ilaa xudun ilaa buuhooda deegaanka wuxuu noqday deegaanka kaliya ee u baahan ceel biyood ka wasaaradahan waxa uu igu heliyay wasaaradda federaalka agaasimaha Alfambe agaasimaha waaxda biyaha iyo wash manager Maxamed waxaan sida afgaranay markaa in maaragtay deegaankan la siiyo ceel biyood ka soo bixi doona insha Allah waxa qabadkeyguna macnaha deegaanka ka wasaaradahan way naga go'an tahay in deegaamada SSC Khaatumo oo dhan in maaragtay biyo ku filan helaan insha Allah Yusuf Sahardiid Smile Direct TV la socdo